waa qiso la magac baxday rajadii lumtay. Wuxuu yidhi waxaan ahaa arday barta duruusta maadiga iyo diinigaba. Qoyskeennu waxay ahaayeen dan yar, aniguna waxaan ahaa ninka kaliya ee ay ku tashanayeen reerkeennu. Yaraantaydii, inkastoo waalidkay aan la soo koray, haddana waxaan ahaa mid u dhaqdhaqaaqa oo guriga wax ku soo celiya. Ayaamuhu waa wareegtee, markaan soo hana qaaday waxaan isbarannay gabar aan qaraabo ahayn. Muddo 2 sano ku dhow markii xiriirkeennu socday, aniguna aanan camal ama shaqo reer lagu biilin karo aanan haysan, ayaa waxaa dhacday inaan gabadha reerkoodii inta u tago aan ka codsaday inay isiiyaan gabadhooda. Haye iyo maya toona ima dhihin, waxay iigu tiraab celiyeen maxaa haysataa xoolo. Anna waxaan u sheegay inaanan waxba haysan. Ragga waa kii jab soo arkee, inta dhiiraday ayaan idhi nin raga asagaa nolosha rogrogtee gabadha isiiya. Kadib waxay dhaheen bal kulan dambe aan isku imaanno adigoon dad soo wadan. Ilaan waa khiyaane malaha aamusnaanta ayaaba ii rooneed. Gabadhii ayaa inta loo tegay taleefankii laga qaaday, ayadiina laftay taagto ayaa la jebiyey, gurigana waa lagu xiray. Haddaan gabadhii dhowr cisho waayey, gurigeedii ayaan abbaaray, ilaan nin jacaylku ku tiixaan ahaye. Kadibna saq dhexe oo habeen 2 isku dhigay ayaan albaabkii guriga meesha qataarka ku aadan inta jaray sidii tuug ayaan farta ku furay qataarkii. Anoo saanta shanqadha ka ilaalinaya oo taagtaagsanaya ayaan galay gurigii. Kadib hooyadii reerka oo bannaanka huruda iyo gabadhii oon qolka inay ku jirto aan filayo ayaan la kulmay. Inta taagsaday ayaan qolka galay. Markaan sidaa u dul fariistay ayay hooyadii malaha ku kacday, culayska guriga soo food saaray. Mar qura ayaana ka war helay ayadoo kuleetiga shaatiga inta isoo qabatay gaad ama dhawi ila kor taagan. Hase yeeshee haddana kolkii ay aragtay iguma dhifane maandhow iska bax ayay tiri. Gabadhii oo hadalkii ku soo kacday ayaan idhi ma caafimaad qabtaa. Hadalkii ay iigu tiraab celidana wuxuu ahaa inay ooyday, taas oo jawaab waafiya isiisay. Kol hadday hooyadii guriga iga baxay leedahay, sodohday inay noqotana aan rabo, inta iska istaagay ayaan iska baxay. Waagu markuu baryana inta lay dacweeyey ayadoo laygu eedaynayo gurigii aan jeexay ayaa xabsiga la ii taxaabay. 5 maalin kadibna waa lay damintay. Gabadhii oo saa'id u oynaysa ayaa taleefan aanan aqoon inta iga soo wacday. Waxay ii sheegtay in loo qalqaalinayo nin ay qaraabo yihiin, aadna ugu dhow, oo weliba ah nin lacag haysta, reerkiisuna ladan yihiin. Xaaskii afraad inaan noqdo ayuu rabaa ayay tiri. Waxay ii sheegtay in ilaa xalay lagu garaacayay inay ogolaato guurkaas. Marka maxaan sameeyaa ayay tiri, maadaama gabadhaasi agoon ahayd. Rag ayaa u tashaday arrinteeda. Tale ayaa igu caddaatay oo marna kama samri karin ayada. Qarash aan dad la hortagana meel iima yaallo. Wax aan sameeyo oo ugu hal celiyo inta waayey ayaan idhi wax yar sabir oo ha isdhiibin, ilaahay ayaa nala jire. Dhegaystayaal, waa noo qaybtina labaad. Haddaba muuqaalka fogeeya oo meel dheer gaarsiiya. Channelkana noo subscribe garaysa saaxiibayaal si aan meel fiican u gaarno. Waa mahadsantiin.